balaaran magaalada baylayo bareediyo boolimo halkay bargal ku taal balaaran waxa way waxay ka bilaabatay markii burburkii dhacay xamar lagu kala qaxay galkacyo waxa noogu yimid maxamed abshir jeneraal maxamed abshir oo nin ahaa oday ah oo xabsiga muddo badan ku jiray iyo boqor king kong oo asaguna maartay ahaa maartay isina iyo cabdi madoobe cabdi maxamuud inda yare oo asaguna ahaa nin corneyl ah oo dawladii markaa buudhay kamid ahaa haday noo yimaadeen galkacyo waxaa la qaatay in dib loo soo nooleeyo magac inaynu la baxno bal hadii markii Soomaaliya ay burbudhay waxaynu markaa u hawlgalinaa baa liiri waxa la isla qaatay in SDF magacii hore oo jabhadda maadaama haddana awal jabhaddu ay jirtay oo jabhad ay ahayd magac leh haddana uu burbur dhacay oo dadkii qolo walba deegaankoodii ay u hayaameen in magacaas lagu hawlgalo baa la isla qaatay waxaana gudoomiye loo doortay maxamed abshir waxa loogu yeeray imaamka baa yiri halay bixiyo gudoomiye SDF baa ahaa maartay magaca la qaatay maxamed abshir maamul buu dhisay la yiraahdo maamulka mudiirada waxaan garanayaa su'aasha in la weydiiyo la yiri mudiir maxaa weey markaas waxa la mudiir waa arabi ah adigu waa wasiir oo kala leeyahay anagu ma aqoon magacyada cusub ay ahayn wax dhan laakiin dawladda amiirada la yiraahdaa halkaas markaanu maraynay waxaan noo yimid Abdullahi Yusuf oo jeel ka soo baxay dawladda Itoobiya iyaduna way burbudhay ilaahay qadartiisa uu soo baxay Abdullahi markuu noo yimidna waxa la sameeyay maxamed abshirna wuxuu ahaa gudoomiyihii SDF-ta Abdullahina waxa loo magacaabay guddiga xaalad degdeg ah wixii maadaama arrimaha abarkiisa la isaga jiray baa loo magacaabay halkaas baa hawshii lagu wada shaqeynayay ka sii socotay waxay iga warantaa isku dayadii raadinta dawladda Soomaaliyeed oo dhalatay oo sharafkii aad ka qaybisay horta Djibouti waxa weeye waa tii lagu doortay Cali Mahdi waxa uu isugu tagay aqoon-yahan rag ah odayaasha hore oo waliba raggii hore oo maartay Soomaalida ahaa Soomaalida waxa weeye raggii dawladnimadii Soomaaliya soo gaaray ama hogaamin jiray waxa lagu doortay Cali Mahdi waa la socotaan arintaas ma shaqeyn way maartay sidii la rabay uma hawlgelin ka bacdi waxa weeye 93kii 15 urur oo waxa weeye mid walba uu leeyahay SFL SDF SDU SBM ayaa la isugu geeyay meesha la yiraahdo Addis Ababa iyo Somaliland oo tir anagu waxaan ka nahay marti sharaf baan ka nahay anagu shirka qayb ka manihin cigaal uu joogay laakiin wuxuu yiri waxaan ka ahay goobjoogan ka ahay riyaab yiri shirka 15 urur ayaa la isugu geeyay 15 ka urur halka la isugu geeyay waxa weeye Soomaali sidii dib lagu socon lahaa dawladnimadeedii ayaa maartay halka la rabo in laga unko waxa lagu heshiiyay wax la yiraahdo regional autonomic oo iska soo dhis in la sameeyo waxa dalku ahaa marka burburku dhacay 8 gobol iyo 29 degmo waxa la yiri 29 ka degmo mid walba waa in laba qof laga keeno marka la isku daro intee noqonaysa 180 iyo 4 ka bacdina xamar baa la yiri tiro kooban oo iyadana loogu daro baarlamaanka Soomaaliya halka ka soo baxay goboladana ha loo sameeyo ismaamul goboleedyo degmo walba gobol walba inuu asagu ismaamulo arintaas waa la isku waafaqay waa lagu heshiiyay kadibna waxa weeye markii heshiiska lagu kala tagay oo xamar loo laabtay waxa dhacay dagaalkii Amisom iyo ka dhacay Muqdisho ciidid iyo ka dhacay baa dhacay arintaas way ma shaqeyn waxaan sabab u noqday dagaalkii waxa uu shawaday qoladii Amisom oo UN-ka waday UN-kii markii dagaalkii xamar uga qayb galay maxamed abshir oo gudoomiye ahaa Abdullahi Yusuf oo gudoomiye xaalad degdeg ahaa iyo ismo ay kamid yihiin islaan ninka la yiraahdo Sultan Saciid baa nagu jiray waxaan nagu jiray ninka la yiraahdo King Kong waxaan hogaaminay raggaasaan hogaaminay saddexda nin baa markii raggii waxa kale oo dhalinyara waxa kale oo jiray Ali Ismaaciil baan nagu jiray General Ali Ismaaciil waxaan nagu jiray Khaliif Ciise Mudan waxaan nagu jiray Xasan Waasiye inuu hadda nool waxaan nagu jiray dhaga weynahan hadda halkan cashiga loo gabar yar oo qaraaniyad ma ah wax qoraysa oo markaa baa ugu jirtay annaga waxa wax noo qoraysay gabar inama tukada gabadhaas wax noo qoraysay ma tukada joogay asaguna oo shirka maartay goobjoog ka ahaa waagaas noola Allah naxariiste waxyaabihii looga hadlayay maalinta waxaan ka garanayaa Allah naxariiste ninkii General Gabiyo ayaa maartay ninba marba la kicinayay SDF SBM buu asoo laba garab SBM buu gudoomiye ka ahaa markii asaga lagu soo aado la yiri khudbadii nin walba baa la kicinayay in tala soo jeediyo
buu wuxuu yidhi aniga talan soo jeedinaya haddii laga yeelayo maanta shirkana waxaa jeergareynayay nin wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ahaa oo Soomaaliya ahaa oo la oran jiray Cabdimajiid ayaa jeergareynayay wuxuu yidhi talan soo jeedinaya Soomaaliya wax dhibaato ka jira ma jiro kale 15 yaga u sarreysa 15 yaga urur oo halka fadhida 15 ugu horeeya meelana la geeyay 15 yagaas ayaa Soomaaliya kala haysana annaga haddii laga qaado Soomaaliya wax dhibaato ka dhex jirta ma jiro shirkaas marka isku aakhirkii wuxuu ku soo dhamaaday in yani la sameeyo dawlad federalism oo regional autonomy hoos ka soo dhis kor u dhisa in la sameeyo iyadana dagaalkaas ay ku fashilantay waxa kale oo iyaduna halka ka jiray oo maalintaas isaguna ka akhriyay gabay ninkii la oran jiray yamyam gabaygaan maqashay maskax ku dhigil waxa iga hor muuqda ama dad baan bahalaa wax murugaysan yani uu leeyahay nabadda diidda kobri maartay Allah kobra u soo diro kobrihiina ma baan aqoon xawar oo ka dhacay shirkaas ninkaasna maalintaas gabaygaas uu akhriyay oo gabay caamo duuban oo khatar aad maartay mucjiso ah marka arintaas halkaas ay soo martay marka kadib markii shirkii lagu soo kala tagay annagu hadaan ahayn maartay SDFT waxaanu sameynay in aanu shir isugu dhimaano Afrika markaas sanadka qardho baan shir isugu nimid in aanu halka maartay maamulkii aan ku dhisno aanu maartay marka madax aan ku dooranno arintaas waxa weeye wada socota laba garab ayaa loo kala jabay waxa ka abuurmay meesha laba garab oo garabna uu taageerayo Abdullahi Yusuf garabna maxaa shiriyo groupkii rag la socday taageerayaan niman istimaaba gud loo saaray ismadii waxay go'aan ku gaareen Cabdirasaaq Xaaj Xuseen loo yaro adugu ala xaal meesha shirkii fashil ba ka dhacay laba garab oo SDF ayaa meeshii ka samaysmay wanaag waxaan aad iyo aad aan ugu maartay bogaadinay odayaashii inaan arrintaas wax dagaal iyo wax dhibaato midna ka dhicin iyadoo la isdaba socdo laba group aanu nahay baa waxa la galay Boosaaso kadibna waxa loogu tala galay 4 bilood baa la fadhiyay kadibna waxa lagu tashaday in la wada shaqeeyo iyadoo mabda lagu kala aragti duwan yahay in la wada shaqeeyo oo aan wax khilaaf dagaal iyo dhibaato ka dhicin oo shaqadii ay socoto ayaa meeshii baa lagu heshiiyay marka ka bacdi waxa dhacay Abdullahi wuxuu aaday dagaalkii meeshii la oran jiray Salbalaar dawladda Salbalaar waxa weey Abdullahi wada socotaan in ay marka asagii ciidanna waxa markaas la xamanayay in wax isku ogaayeen marka adsaba shirkii la isku arkay oo qolada ciidamadu wax isku ogaayeen qolada kale iyaguna bis tilmaamayeen markii uu Abdullahi tagay meeshii la oran jiray Xamar oo Salbalaar la tagay horta shirka in laga qayb galo waa lagu heshiiyay laakiin laba group baa la noqday qolna waxay ku degtay Al-Mahdi oo madaxweynihii sheeganaya qolna waxa weeye waxay ku degtay عيديد بيكوتكتي والله بقى جروب مركي بالله كلا شوي سالبلار مركا واحد سمي يقول لي عيديد بس مس عبد الله مركا أنت واحد ويقاف لو ودي وأنت مواي واحد نقطة عبد الله هالكائن سجبحه هالكائن سجبحه وكبحه والله بعرف والله صعته بعد عادي شركة هالكاس سالبلار هالكاس هو ما عرفت أنا هالكاس سجونا وكفش الماء بربري كدب حاد عي كدب واحد عي إن دب هدنا السجوي ياري شركة ماشي الأورنج قاهرة مصر بوساسة وحلي ما يشتري الوقبته تندا الله كيانو شروينها الوقبته أيضا وارتاس وسعويدي تندا دي شركة إن الوقبته ارتاس وسعويدي كبعد وحلي أرنتي صار مرة تجي هدنا وحارت اللي بدل ماشي الأورنج مصر إن لسوق جيو والله سعتها مصر مرة لسوق تجي عبد الله يجبيو شركة ويكبحين waxay sirugeen shirka waxa shir gudoominaya la yiri Xusaan Ciidiid iyo Al-Mahdi ayaa shir gudoominaya waxa kale shirka markay isaga tageen ka bacdi Abdullahi iyo ninkii la oran jiray Gabiyo iyagoo wada socda ayay garow noogu yimaadeen Puntland bay yimaadeen waxa arinta ka dhalatay Puntland la dhiso shir baa la qabtay la yiraahdo shirka watashiga 8 sano arinta ahayd qoys baa laga gaaray markii la arkay sida yani arrimihii dhacay oo dhan conclusion lagu sameeyay iyo fikradihii laga dhax arkay waxa weeye laakiin waxaan ku tashanay iyadoo aan qoys laga gaaray in markaas wax cusub la wada dhisto in aan sameeyno dawlad goboleed Soomaali raadinay arintaasna waa la hirgeliyay waxa lagu dhisay 398 dawladda Puntland in magaca loo baxsho Puntland dawlad goboleed noqoto kadibna Soomaali ay doonto waa arintaas halka lagu xeerto lagu gooyay dadka horta wax weey bil aadamka hay'adda isku tashadaan oo ay niyadoodu meel wada jirto horta wax kasta oo qabsoomayaan ma jiraan wax la gaari karin hadii dadku ay hayaan moraal hayaanin iyo inay meel gaari karaan ay macnaha ay aaminaan
waxa jiray halkan dadka waxa ganacsatada waxa ay leeyihiin waxa weeye baa horta waxa weeye noo aha laf dhabar waxa weeye ganacsatada ayaa laf dhabar noo ahayd halkan markii lagu dhisaayay dawladda Puntland waxa weeye waxa la isticmaalayay wixii ganacsatadu lahayd gabdhaha guryaha waa laga saaray shodariyada lagu saxanayay dirmaha lagu saxanayay raashinka guryaha bariiska cad baa lagu karsanayay waxa martida aan leeyahay musdiibay ayaan maxaad u sameynay ari geel baan u soo gadi jiray dadka siiba halkaas ugu qal jiray usan jiray أنا وعن كم إذا تضبط النين أو ضدك قابلة هي إرجوين كأ ومرتدى بأنو كتير ضدك مرتدى أنا واحد ويجريان وضدك وقصرني هل كاسنا وحن وصارني راشيك كودي ضدك الدجان كنا أي جالس تبري ما هني العق راشيني قفل بعض سجايا ديارها إن استبروا جوري سبريس عتك سكري أو بقول بقى مرتدى قابله أو ضد مرتدى جوري سكرنا ولا دان أنا ورجع كم إذا ذهبت ديري أنا كريت بريس جوري لكن دبجال إلى هنا حريص تاسي يقول أنتي ayaa noo sameyn jiray raashinka anagoo group badan halkaas aan boob jiray dirmana oo ku saxan jiray waxaan ku qanacsanayn waxa weeye raggii u bareeray inay waxa sameeyaan oo dadka yaani xoogaas iyo miskaxdaas iyo dhaqaalaha jeebka yaani laga soo saaray ganacsatada iyo dadkii isku dul qaadanayay qof walba uu heega ka waxa oo maanta in badan ina dhimantay qaarna wali wax ka dhaqan yihiin waxay gaareen in ay ka dhabeeyaan hadafkoodii ahaa in Puntland ay dhisto Soomaaliland ay raadiso halkan ay ka baxdo shir ay ku qabtaan Eldoret kadibna dawladda Soomaaliyeed laga soo dhisto Muqdisho ay tagaan madaxtooyadii ayaa dhabadiina gaarsiisay hadafkii loo dhisay ayaa laga dhabeeyay meeshaan leenahay dawladda dabacad ma sameeyay dad baa sameeyay wax weeye halka tilaabadii laga qaaday waxaan ku gaarnay inaan madaxtooyada Muqdisho dawladda Soomaaliyeed inaan ka dhisno ka taagno oo cid gashan la waaya awal tagta inaan gaarsiino macnaha hadafkii ragaas hadafkii ay lahaayeen ayay ka dhabeeyeen fiiriye qoraalkii ay sameeyeen iyo go'aankii ay gaareen ayay ka dhabeeyeen macnaha waxa weeye qofkaasi hadafkiisa ma ka dhabeeyay baa la yiraahdaa ma gaari meesha u socday mise dhacdo ku bariiqday ma ka leexday wadadii mise waa u gaari yaani waxaan ragaasi gaareen sida yaani meeshii ka amba qaadeen meeshii u socdeen oo Soomaali in raadiyaan dawladda Soomaaliyeed iyo leelaan oo mid maanta jirta ayay gaarsiiyeen hadafkoodii iyo meeshii u socdeen waxa weeye hogaankii dhaqanka oo arinta la dhawrta horta Islaan Maxamed Islaan Muuse Ilaahay raxmadda ha siiyo hadii uu jiri lahayn waxa weeye wax noo socon la ma jiro nik islaanka ayaa laf dhabar u ahaa raggi kale oo ismadaha caawinayay la shaqeynayay way la shaqeynayeen laakiin siyaasad baa iyaga qaarkood ka dhex guuxaysay sida koono kale iyo uu shaqeeyay oo rag wax shaqeeyay kamid ahaa laakiin waxay rag siyaasadda u tartamaya oo rabay inay siyaasadda u tartamaan laakiin Islaan Maxamed waxa ka go'nayd hadafkii halka loo inuu miro dhalo markii la dhisay rag baa ka hadlay waxa weeye wad ogtahay maalintii warqadii lagu codeeyay taftu ku gubtaday markii dambe idaacadu tagay wuxuu yiri ilaahay hortiisa arrinta cadaalad u dhacday idaacadu ka sidaay waxa weeye mar walba marka aan dhaqdhaqaaq dareeno ninka isku kaayahayay oo lahaa ma jirto oo go'aanka gaarayay oo aan laga daba oranayn Islaan markii la bilaabay Puntland la asaasayba taariikhda ku beeganto dhammaanteenu soo baxnay markii la bilaabay Puntland la asaasayba taariikhda ku beeganto dhammaanteenu soo baxnay